dadka ku nool Maldives boqolkiiba boqol waa muslimiin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jasiiraddu waxa ay ka kooban tahay kumanaan kun jasiiradood oo yaryar. mid ka mid ah jasiiradahaas ayaan ahayn jasiirad dabiici ah. dadka ayaa gacantooda ku sameeyay. dhowr sano ka hor magaalada caasimadda ah ee Male ayaa noqotay magaalo saxmad badan oo dhismihii uu aad ugu batay. waxaa loo baahday dhul hor leh oo dhismooyin cusub laga hirgeliyo, dadkuna ay ku kala nafisaan. kadib shacabka iyo dawladda jasiiradda Maldives ayaa iska kaashaday dhismaha iyo hirgelinta jasiirad cusub oo laga dhisay meel 2 kiiloomitir u jirta magaalada Male ee caasimadda ah. maadaama jasiiradda oo dhan ay biyo ku hareeraysan yihiin, ma jirin dhul bannaan oo la degi karay aan ka ahayn in biyaha dhul deegaan ah loo bedelo. soddonkii Agoosto 2018 ayaa jasiiradda albaabada loo furay. tira ahaan dadka ku nool jasiiraddan cusub waa 50,000 oo ruux oo aan ahayn dad si joogto ah deegaan uga ah jasiiradda. waxaa ku badan goobo ganacsi, hoteelo iyo xarumo dawladeed, laakiin waxaa laga shaqaynayaa in dad si joogto ah u dega la suurtageliyo. magaalada waxaa camira oo si joogto ah u booqda dad dalxiisayaal ah. si guud jasiiradaha Maldives la isku yiraahdo ayaa ah meel jawi ahaan degan, bilic qurxoon, nabadgelyo iyo xasiloonina ay ka jirto. taas ayaa sababtay in dad badan oo dalxiisayaal ah ay u safraan jasiiradda. waana isha dhaqaale ee ugu xooggan ee ay jasiiraddu ku tiirsan tahay. dhammaan dadka jasiiradda ku nool kama badna 530,000 oo ruux. waxaaba dhici karta in ay ka yar yihiin dadka ku nool degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. qofku haddii uusan muslim ahayn lama siinayo dhalashada waddanka. shardigaas waxa uu ku qoran yahay dastuurka dalka. wadamada qaarkood waxaa jira dad cimrigooda oo dhan lacag u kaydiya oo qarash badan aruursada si ay mar uun u booqdaan oo ay ugu soo dalxiisaan jasiiradda Maldives. inta aanu raadinaynay xogta jasiiraddan waxaanu ogaanay in qofka u bareera in uu u safro Maldives cimrigiisaba in uu awoodi karo hal mar oo kaliya in uu u safro halkaas. tusaale aan u soo qaadano, in kasta oo la heli karo hoteelo ka yar raqiisan oo jasiiradda ku yaala, haddana waxaa jira hoteelka lagu magacaabo Baros oo halkii habeen lagu seexanayo $1,500. maadaama ay jiraan hoteelo qarash ahaan ka yar raqiisan hoteelkaas, kuwa kale oo sidoo kale waxaa jira qarash ahaan ka badan. waa kan ugu dhexdhexaadsan. bal qiyaas adiga oo $100,000 si uun ku helay, meeqa habeen ayaad Maldives seexan lahayd oo aad habeen kasta ku bixin lahayd $1,500. in loo safro Maldives oo waliba safar dalxiis ah loo qasdo waa arin aan qof kasta awood u yeelan karin. badanaa dadka hantida leh ee guursaday ayaa bishooda malabka ah maalmo ka mid ah ku qaata halkaas. sidoo kale madaxda ayaa maalmahoodii nasiinada u safra oo nasiino ku soo qaata. laakiin qof noloshiisu ay ku tiirsan tahay mushaar uu qof ama shirkad ka qaatay, way adag tahay ama suurtagalba maaha in uu dalxiis u aado Maldives. deegaan aan buuq iyo sawaxan lahayn, si nabdoon loogu nool yahay, waxaa dhici karta qofka soo galootiga ah ee jasiiradda jooga in uu dareemo kalinimo iyo cidlo. ma ahan in qofka la neceb yahay ama la iska faquuqayo, laakiin waa in dadka jasiiradda booqda fursad loo siiyo in ay si xornimo leh nafsadoodii waqti si qoto dheer u dareemaan raaxada iyo nafiska deegaanka ka jira. laakiin ogow, waa wax jeebkaaga ka go'an.
jamhuuriyadda Maldives waa jasiirado yaryar oo hal dawlad leh. baaxad ahaan isugeynta dhulkaasi waa 298 kiiloomitir oo isku wareeg ah. dawladaha Sri Lanka iyo India ayay jihada koonfur galbeed ka xigtaa. qiyaasta 700 oo kiiloomitir ayay dhanka badda kaga beegan tahay dhulka beriga ah ee qaaradda Asia. caasimadda waddanka waa Male, lacagtuna waa Maldivian rupiah. cimilada jasiiraddu waa mid iska degan dhammaan bilaha sanadka. Maldives waa 190 jasiiradood oo yaryar oo hal meel ku wada yaala. deegaan ayaa laga tegayaa si deegaanka ku xiga loo gaaro. biyo ayaa xad u ah oo labada magaalo u dhaxeeya. in laga safro magaalo oo loo safro magaalo kale waxaa qasab ah in doon ama diyaarad la raaco. tirakoobkii ugu dambeeyay ee uu sameeyay bangiga adduunka sanadkii 2019 tirada dadka Maldives waxaa lagu qiyaasay 530,953 qof, kuwaas oo dhammaantood boqolkiiba 100 muslimiin sunni wada ah. أشهد أن لا إله إلا الله. kalluunka waa waxa ugu badan ee jasiiradda laga cuno, sababtoo ah meel kasta biyo ayaa ku hararaysan, biyahana kalluun ayaa ka buuxa. lacagta faraha badan fooqul caqliga ah ee ka soo xaroota dalxiisayaasha waxa ay ku dhacdaa dad dabaqad sare ku jira oo ganacsi ama siyaasad ku mashquulsan. wejiga wanaagsan ee ay Maldives leedahay waa shaqooyinka xirfadaha sare lagu qabto, soo dhaweynta martida ajaanibta ah, dakhliga xooggan ee ay tacbaan, nabadgelyada iyo ammaanka lagu nool yahay. laakiin dhinaca kale waxaa jira weji qarsoon oo Maldives ay leedahay oo aan wanaagsanayn. waa muuqaalka siyaasadda iyo maamulka dawladda oo badankiis ay ku hararaysan yihiin howlo musuqmaasuq, xatooyo, dhac iyo wax isdabamarin. sidaas oo ay tahay shacabku arrintaas ay madaxdu ku dhaqmayaan ma niyad jabin, mana hakin hardanka ay nolosha ugu jiraan. waana tan keentay in Maldives ay sii ahaato jasiirad si joogto ah ay ugu safraan kumanaan dalxiisayaal ah, weliba ayada oo ah jasiiradda ugu nolosha qaalisan meelaha loo dalxiis tago. haddii aad u baahan tahay goob hawo macaan, jawi degan, nabad ah, deegaan midaba leh, cunto fresh ah oo dhadhan wanaagsan, adeegayaal heegan ah, biyo dabaasha ku wanaagsan, iyo jiif qurxoon oo raaxo leh, u safar Maldives. waa haddii aad awoodi kartid in aad hal habeen hotel ku kiraysatid $1,500. haddii aadan awoodinna muuqaalkan dhowr jeer iska daawo oo ku ceecisho, niyaddana ku degso. mahadsanid.